السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قيمي قياحيga mudan waa idin salaamay oo walaalkiin maslax abdi youtube ka daawanaysan oo maslax official mar kale isku soo noqod wanaagsan barnaamijka hadalaynta bulshada iyo maanta بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah maxamed cabdi nuur oo ah deeqa walaalkeed ka weyn run ahaantii gabadhaas waa walaashay iga yareed oo la weeyay taariikh 23 ayadoo ku sugneed xaafadda California meel ay ka shaqeeyay baa 5 saac iyo bar oo habeenimo laga qaaday maalintii taariikh 24 report waxaan geynay California police station aan geynay inay maaragtay gabadhaas naga maqan tahay baan reportka aan booliska u geynay reportka booliska waxay baareen maaragtay investigation ay qaadeen tarakin bay hagaajiyeen ilaa maaragtay waqti dheer ay booliska ku raad joogeen baaritaankiina waxa way gabadha lama soo helin taariikhda markii ahayd maaragtay taariikh 4 baa nolosheegay oo idis ay ka noo cadeysay gabadha inay maaragtay geeriyootay reportka investigationka ay booliska qaaday baa idis ay ka noo soo sheegeen gabadha inay geeriyootay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeri aad u naxtin badan oo maaragtay si xun loo jirdilay oo si xun loo kala jarjaray run ahaantii qaraabada iyo qoyska kulli aad u taabatay marka gabadha meeshan waxay u joogtay waxbarasho jaamacad la Great Lake University of Kisumu bay ka akhrisanaysay Bachelor of Science in Community Health HIV Management ay akhrisanaysay qalin jibintana waxay maaragtay ku sugneed inay maaragtay qaadato bisha 12aad inay qalin jibiso marka ilaahay baa u qori inay maaragtay ay daba martay qalin jibintaas oo geerideedu nolol soo xaqiijiyo sidee ku ogaateen in gabadhaas ay tahay gabadhiina waxaan ku ogaanay booliska investigationkii qaaday iyo reportkii DCI ay soo qoreen markaan maaragtay aan dul marnay on arnay CCTV camera-da booliska footage ay keentay sawiradii ay booliska ay soo qaaday gabadha dharkeedii iyo maaragtay alaabteedii oo handara la soo qaaday waan maaragtay receipt-kii gabadha maaragtay ay ku adeegatay oo handara la fiilo kor helay waan ogaanay gabadha maaragtay inay iyada tahay waan ogaanay inkastoo haddaan weli aan cadeyn rasmi ah ay booliska ay maanta DCI ay siinin oo weli ku raad joogan oo leeyihiin baaritaan sameeyay DNA boqolkiiba boqol ma xaqiijin karnaa haddaan gabadha inay maaragtay ay iyada tahay laakiin dharkeedii iyo alaabteedii iyo maaragtay wixii dhan magaan aragnay waan ogaanay gabadha maaragtay inay iyada tahay waan ogaanay Hashim iyo Deeqa maxaa ka dhaxeeyay Hashim iyo Deeqa wax ka dhaxeeyay ma garanayo ani Hashim aqoon isu maleeyay maaragtay wiligayna ma maqlin wiligayna ma arkin gabadha waxay noo joogtay anaga Nairobi waxbarasho nooga joogtay marka haddaan reportkan soo baxay baan maqalnay Hashim aan maqalnay magaciisa marka wax ka dhaxay iyo maaragtay iyo macluumaadkaas ani wax wara kama haynin reportka waxa haddaan magac soo baxay oo dhahay ninkaas gabadha dilay baan maqalnay Hashim bulshada magaciisa waxaan maqalnay in Hashim iyo Deeqa uu ka dhaxeeyay xiriir jacayl Hashimna uu soo doontay gabadhaasi warkaas ka waran may warkaas waa been waxba kama jiraan maaragtay gabadhaas cidooda kama soo tuugin reerkan kama soo tuugin Hashimna wiligeena anaga noo imaadeen man isgaranayno qaraabadan waxa waay gabadha la joogtay oo maaragtay oo walaalahan ay kan kama soo tuugin marka warkaas waa been media gali gali Hashim waxa waay wiligeena gabadha soo ma tuugin marka waxa leedahay Hashim iyo Deeqo jaceylka ma dhaxeenin ma xaqiijin karo wax jaceyl oo ka dhaxay maaragtay oo haddana aan ogsoon yahay malahan iidan waxba nooma sheegin reerkan kama soo tuugin maaragtay qaraabada la jirteen waxba nooma sheegin waxaa la sheegay in Deeqo ay soo waceysay xaafadiina mise dad ka mid ah dadkiina markii Hashim la joogtay warkaas waxa waay xaqiiq maahan gabadha telefoonkeedu waxa u dambeysay oo la shiday taariikh 23 waqtiga maaragtay la qaatay u dambeysay telefoonka WhatsApp ma fariin laga soo qoray fariin maaragtay qaab loo raacaban la garanaynin oo af Soomaali ku qoran inta badan gabadhaas aan ku aqoon jirnay magaca fariin soo qoraysa inay am English am Swahili soo qorto marka fariin af Soomaali ku qoran oo maaragtay aan handara qofka waxaas ku sugan yahay iyo waxaas yahay ku sheegaynin oo gaaban baa laga soo diray WhatsApp kan waxa waay
si lagu isticmaalay garan mayna laakiin telefoonka tracking-ka booliska way ku weysay line waxbana kuma jirno wax telefoonka shaqeynaya ma jiro codka aan maqalnay maxaa ay leedahay waan tahriibay oo waxaan u socdaa meel aan garanayn codkaas waa jira inaad maaragtay cod telefoonkeeda laga soo duubi oo gabar kale maaragtay oon qaraabo ahni oon in abtaan ahni codka loo soo diri marka codka isaga hay waxaan dareennay inay maaragtay gabadhan qof tooja lagu hay oo la haysti oo codka lagu qasbay inay sida ida dhaxda ama maaragtay maskaxdeeda bedelanta oo maaragtay qaab kala sixir iyo wax loo adeegsadayba qof maaragtay maskaxdeeda bedelanta inay yahay oo wax ida hadda qiyaarkeeda ay ku soo duubtay ay yahay baan dareemeyn marka maxaa keenay in haddii waxba ka dhaxin in ay u adeegto Hashim ay alaab u geyso niyo garana ma haya maaragtay gabadha anaka inay Hashim la joogto cadeyn uma haynin codkaana meel laga soo duuba waan garan weynay booliska iyo maaragtay dawladda reportkeeda baan raacaynay reportka dawladda waxaan dareensaneen inay maaragtay ku raad joogan tracking-gaas gali way marka gabadh inay Hashim la joogto anaga ma dareensan ilaa uu hadana maaragtay camera iyo DCI-ga macluumaadkooda habeenkii guriga lagu dilay inta noola keenay in Hashim la joogto ma xaqiijin kar markii DCI inay sheegtay in la helay lafaha deeqo dareenkaada midka aabaheed ehelkeeda sidoo ahaa aad iyo aad ay noo taabatay maaragtay gabadha markii la dhahay lafihii meesha laga helay oo naxdinta badneed oo argagax badneed markii la dhahay waa gabadha run ahaanta qoyska aad iyo aad ay u taabatay waana arrin murugo leh oo maaragtay aabi iyo hooyo iyo walaalihi iyo qoyska dhan aad iyo aad u taabatay maaragtay waa arrin murugteeda lahayd bal familka waxa nooga sheeg deeqo meeqa carruur la dhalatay aabaheed intuu joogaa hooyadeed aaway bal wax nooga sheeg qoyskeeda deeqa waxaa la dhalatay caruur 8 iyada ku 8 ahayd 4 wiil waxaana iyo 4 gabdhood qoyskan waxaa degan yahay meel la yiraahdo Ramo deeqa xagga ay ku soo waxbaratay xagga way ku soo kortay iskuulkeeda primary iyo secondary waxay ku soo akhrisatay Ramo Garissa ayaan dar waxbarasho u maadi oo ay waxbarashada jaamacadda ka akhrisatay degree-ga aan daray Nairobi u joogtay marka qoyskan xagga waa degan yahay Ramo waa degan yahay hadda xaalka intuu maraya hadda xaalka waxaa maraya maaragtay dawladdu ma gasoo weynaa reportkii DNA inay qaado oo inuu xaqiijiso maaragtay lafihii inay maaragtay ay yihiin lafii deeqo inay yihiin markaas kadib haddii maaragtay lafii ay noqoto ayada inaan handar aasano oo wixii maaragtay kale oo dabagal aan handar un baan dawladdu gasoo weynaa marka ugu dambeyn bal iga waran xaalka qoyska sidii dareemayaan hooyadii aabihii xaalkooda siduu yahay run ahaantii waa dhacdo argagax leh qoyskuna kulley waa dareemi kartaa qof maaragtay intaas lagu soo rafaaday oo 8 sano jaamacad soo akhrisanay oo secondary soo akhristay oo primary soo akhristay oo intaas maaragtay heer maaragtay fiican maray qalin jibintan haddaan handar u soo gashay qoys ay ka dhimatay kulley waa dareemi kartaa adiga maaragtay xaaladiis waa dareemi kartaa maaragtay aad iyo aad ay reerka ay u taabatay dhacdadaas iyada aad ay u taabatay ugu dambeyn familka maxaa u qorshaysan mise maxay sameyn rabaan hadda family hadda waxay sameynayaan malahan maaragtay reportka dawladdu baa gacanta ku haysan ninkana waxa waaye waa isku jiraa gacanta laamaha amniga isku jiraa dawladdu maaragtay tilaabadii qaado baan ka sugaynaa in maaragtay cadaalad ay gabadhaas hesho oo ninkaas maaragtay la horgeeyo maxkamadda la horgeeyo oo maaragtay ciqaab la mariyo oo maaragtay sidaas gabadhan asa maaragtay ciqaabtiisa mar inay dawladdu mariso baan ka rajaynaynaa insha Allah